السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسودو هذا channel كمد student iyo waxyigelin caafimaad. wax ka baro cudurka dhiigkarka halista uu leeyahay iyo waliba cuntooyinka cholesterolka badan. Qofka normalka blood pressure-kiisa waa 120 iyo hoos u 80 mm mercury ah. Qofka markuu dhiigkarku qabo dhiigiisa sare ayuu u kacaa, xawaarahana wuu u kacaa. Sida normalka ah markuu dhiig xawaarihiisu kaco, xididku waa uu diiqaa si uu dhiig badan u maro. laakiin se qofku markuu in badan dhiigiisu kacsan yahay sida qofka dhiigkarka qaba wuu dhaawacmayaa darbiga xididka. Markuu dhaawacmo waxaa u fududaanaysa inay meeshas galaan waxyaalaha dhiigga ku dhex jiro oo cholesterolka ka mid yahay. Cholesterolka iyo waxyaalo kale ayaa meesha isku aruursanaya kadib waa weynaanayaan waxaana u fududaanaysa inay dilaacaan. Unugyada dhiigga ayaa is aruursanaya xididkana si dhammaystiran ayuu u xirmayaa. dhibaatada xanibaadani keeni karto waxay ku xiran tahay xididka meesha uu dhiigga siiyo. Haddii xididka xirmay uu yahay mid wadnaha muruqiisa dhiigga siiya, xanibaadda muruqa ka dambeeya ma shaqeynayo. Kadibna qofka waxaa ku dhacaya heart attack ama wadnaha baa istaagaya. Xididka xirmay hadduu yahay mid maskaxda ku dhex yaala, maskaxda qaybtaas oxygen la'aan bay noqonaysaa, shaqadeedina ma qabsan karto oo waxyaalihii control jirtay ma control karto. waxaana dhacaya stroke. Calaamadaha lagu ogaado qofka inuu stroke ku dhacay waxaa ka mid ah wajiga oo gees u jilca oo gees u raracsama, gacmaha oo weak noqda, hadalka oo qofka dhiba. Marka intaas calaamada aragtid waa 911 ama emergency-ga. Cuntooyinkan trans fat-ka iyo saturated fat-ka leh waxay sare u kici karaan cholesterolka dhiigga ku dhex jira. Waxayna u fududeynayaan process-kii aan soo aragnay ee ahay inuu xididka xirmo. Haddaa ilaa halkan soo gartay waa ku mahadsantahay daawashadaada. Waxaan rajeynayaa hal mise laba inaad ka faa'iiday videogan. Hadday sidaas tahay like saar, subscribe ii saar si aad ula socoto waxyaalo badan oo ku saabsan caafimaadkaada. Tan iyo kulanti dambe waxaan kaga tagayaa sidaas iyo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.